kamid ahaa taliyihii booliska gobolka banaadir jenaraal saadaq mar alaaday markii uu kor yimid oo uu yiri saaxiibtaro ma taageeri karo maadaama aan ahayn in u dhexeeya dadka Soomaaliyeed iyo waxaa xilli ka xiriiriyey madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore xilka xayuubin keliya maahan waxaa loogu daray in darajooyinkiisa ciidana laga xayuubiyo waxaa intaas weydiisay in la isku dayo in lasoo weeraro halkaan yimid habeen dhaweed waxaa dhexdhexaadin ka galay dad badan oo khiyaar oo u weynaa madaxweynaha galmudug madaxweyne axmed boorboor si ugu laabto gurigii uu ka soo guuray marka hore asoo tixgelinaya codsiga dadkaas iyo nabadda iyo waxaas oo dhan ayuu aqbalay taliyuhu inuu ku laabto gurigiisii maantay abaar kulli duhurnimo ayaa nidaamka farmaajo wuxuu soo diray ciidamo aad u tiro badan xaafaddii uu ka deganaa eraboorka agtiisa taasoo caddayn u ahayd in uu dagar ka watay awalba nabadii uu ku codsaday inuu gurigiisa kusoo laabto farmaajo taliyihii wareegayey ugaan ku gaaray inuu deegaankiisii dib kusoo laabto weliba waxaa la isku dayay in lala hadlo nidaamka oo la yidhaahdo ninkan heshiiskaad kusoo qaadeen heshiis maadaama aad kusoo qaadeen ka leexda waa diideen hadda wuxuu joogaa xaafadda shirkole wuxuu la joogaa dadkiisa iyo deegaankiisa waxaan rabnaa warka waa laiga dambayn doonaa laakiin aan sheegno kow annaga xildhibaano u ah iyo mas-uuliyiin dembiga iyo wax eer oo maxkamada ay kusoo ti jenaraal saadaq ma jirto waxaad ogtihiin madaxweyne farmaajo waxaa madaxweynihii hore waxaa madaxtooyada u jiifa jenaraal cabdirashiid janan oo maxkamadda soomaaliyeed ee xukuntay oo dambiile ah oo human rights watch hay-adda xuquuqda bani aadamku ay dalbatay in la soo qabto madaxtooyada u jiifa wuxuu ku jiifaa waa maadeernimada jenaraal saadaqna gurigiisii u joogilay marka runtii ciyaarta farmaajo anagu aad baan u fahamsanay dadka deegaanka waa cabireen ra'yigooda waad aragteen mudaharaadyada ka socda deegaanka waxaan ku sheegaynaa dadka deegaanka qofku soo weerara xaquu difaaca leedahay inaad naftaada difaacda leedahay sharaftaada iyo karaamadaada inaad difaacda leedahay farmaajo madaxweyne sharciya ma aha waktigiisu waa dhammaaday waa hogaamiye kooxeed jooga fila soomaaliya ciidamo ka keensaday deegaanadiisa ayuu rabaa dadka inuu ku khalkhalgeliyo kuna qabsay waxaan la hadlaynaa kuwa ciidamada ku jira oo aan annaga qaraabada waxaan leenahay masaajidka isku goynaya ha noqonina ka hara nidaamka waqtigiisu waa dhammaaday yuusan guryaha hooyadii iyo aabihii rag ka mida ciidamada aabbayaashooda laha rag ka mida ciidamada hooyooyinkooda laha oo u sheegu yiri beenta farmaajooda ka leexay waxaan u sheegaynaa inay isaga leexdaan beentaas haddii ilaa yiraahdo aad iyo aad loo mahadsantihiin waa la iga dambayn doonaa dadka deegaanka iyo dadka reer muqdisho ee nabadda jecel waxaan u baaqaynaa nabaddu difaacashay rabtaa inay ka difaacdaan hogaamiye kooxeedka farmaajada waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. marka koowaad waxaan rabaa inaan u tacsiyeedna ilaa weyna iga raajicuun dadkii caawa fiidkii ku dhintay weerarkii ciidamada farmaajo soo qaadeen oo deegaanka sheekule ku soo qaadeen markii magaalaha naxariisto inta dhaawacaan ilaahay oo baadayo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allahu kuwii dambiilayaasha ah ee muslimiinta ay farkaas geystay waa lagu ciqaabi doonaa insha allah haddii alla yidhaahdo sharcigaan sarin karo intaas kadib 2017 farmaajo oo dalkan ku yimid nidaam doorashada dimuqraadiga laba madaxweyne isaga xilka ugu horeeyay deegaankan ka soo jeeda ayaa labada dhinac inta ka mareen oo maxdiisa qabteen kor taagan markaasaa lagu ku soo dhaweeyay waxay ku ixtiraamayeen ama lagu soo dhaweynaya xilka loo doorto oo hay-adaha instituushinada dowladda wax doortay loo ixtiraamayo waxay dhahay dastuurka aan haysano iyo shuruucda dalka iyo dimuqraadiyadda xukun gaaya ee dalka ka haqaad
nasiib daro dalkii 2017 sidaas lagu dooray maanta oo 2020 aan joogo farmaajo uu ku bedelay dictatoriyad keliya tasliim oo wax sharciya iyo wax nidaam oo keliya inuu ku shaqeeyo si jiro muddaxileedkiisa wuxuu ka 7 February 8 February 2021 farmaajo dalkan madaxweynaha uu sanaayay haddana sidaas ay tahay ila Soomaaliya hadda muddo 3 bilood sanax fadhiya waxaa kaloo intaas dheer inuu baarlamaanka labadiisii aqrinta kala reeyay oo barihi shacabku u tegay uu leeyahay waxaan u baahanahay inaad muddo kordhin sameeyid oo aan sii ahaado muddo aan caynayn 2 sano ka bilaabanayo aan la warqad mid ay ku dhamaanayaan Allah calamayta inuu rabo inuu fila Soomaaliya sii dhaxlo waxaa kaloo intaas dheer ciidamadii qaranka inuu uga shaqaynayo qabyaalad iyo dadka in muddo si aan la socotiin jarabasaada tariixa qoyska nidaamka markii madaxweynihiisa uu dhamaaday uu dalkan baalaasiya Magdalene doorasho hal ah ayuu garaadiina ka xayuubiyey xilkiina ka qaaday cid ama nidaam lagu soo eedeeyay ama loo maray oo shaqo tilmaamaya inay sii jirto saa la socodsiin saraakiisha ciidamada waxay leeyihiin ashimad waxay yiraahdaan wadaan jira sarkaal waxay leedahay dacwad loo haysto dacwad inta lagu soo eedeeyo ay tagaan maxkamadda dacwo ku soo aaday xukun lagu markaas kadib ayaa madaxweyne ugu dhigay isagoo madaxweyne rasmi aan ahayn oo madaxweynihiisa uu dhamaaday ayuu isagoo nidaamkii dowladnimada garab maray wuxuu isku dayay inuu gacantiisa ku qoro wixii asagoo qoro oo waraaqo sida cabdilashidaaye laga soo daabacay oo ka soo daabacay xisbiga Soomaaliya waana si gab waxaa kaloo intaas dheer qabyaalada farmaajo uga shaqeynaya fila Soomaaliya cabdilshidaan wuxuu ogtiyey inuu ahaa dambiila dad ku soo xasuuqay gobolka Galmudug oo hay-adaha caalamiga xuquuqdooda ay eedeeyeen oo xeelaaninta dacwada ugu soo oogtay oo sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir ay dacwo ku oogtay ayuu farmaajo gedo baabuur iyo lacag iyo ciidan inta ugu diray oo laga soo qaaday ayaa lagu soo dhaweeyay airboortka magaalada Muqdisho ayaa la soo geliyay fila Soomaaliya ayaa la geeyay waxaa dhex fadhiya ninkii mujrimka ahaa oo maxkamadaha dalku ay xukumeen adduunku dacwada u haystay inuu fila Soomaaliya dhex fadhiyo saadar nacaawa oo raacaysanayo uu leeyahay waa dambiil aan la soo qabto isagoo cid dacwo haysan aysan jirin waxay ka marqaati kacaysaa fitnada iyo qabyaaladda farmaajo uga shaqeynaya fila Soomaaliya waxaan rabnaa inaan halkaan ugu sheego farmaajo fahad iyo biixi wixii dhib deegaankan soo gaaro ama dadkan soo gaaro mas-uuliyaddeeda idinkaa qaaday waa in kula xisaabtameen la idinkagana hari maayo insha Allah ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan dhigay ee jarabasaada ka dhashay ee annagu xildhibaanada aanu nahay waxaan leenaha walaalayaal oo diyaar garooba haddii lagu soo weeraro oo naftaada la soo weeraro oo maalkaaga la soo weeraro oo sharaftaada la soo weeraro waajib diiniya waa inaa isdifaaca hadda iska difaaca soo bahaystay oo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur wuxuu nahay mid ra'iiska jira gacan birahan iskaga qabanayna insha Allah aad iyo aad رمضان كريم تمام من الصومالية وهل استيجوغان أريد أن أعاون مشان سكون مثل الوان يقول ريا فرفاهية رمضانتي فرماجو تدخل كل اللاري حدودك أيام كمينها أو كل يستوري تركي هو يري حسانة على قطعه asagoo ugu soo eedeeyey qodobka 184 xagga ciqaabta Soomaaliyeed oo macnaheedu uu yahay toogasho ana muwaadin Soomaaliyeed oo xildhibaan ah waxa la igu eedeeyay waxay ahayd maaragtay madaxweynuhu markuu dastuurka ku tuntay xaq waxaan u lahaa inaan madaxweynaha soo eedeeyo kuna eedeeyo dastuurkii uu jebiyey baarlamaankana mooshin ka keeno arrintaas markaan ogaado ugu soo eedeeyey maalintaas laga soo bilaabo iyo ka horba wuxuu waday inuu dastuurka iyo waxa Soomaali ay ku heshiisay uu ku tunto dad badan ayaa maanta maaragtay alxamdulilah rabbil caalamiin soo gaaray meeshii aan joognay 2017 markaan indhaheena aan kala qaadnay aragna farmaajo meesha ku socdo iyo sida uu ugu tumanayo sharciga وإلى أن هذه المنطقة الصومالية مثل ما في جوجان إن البوزيشن كان سو جارين
هذا ما رحت إلى وحمدنا وعنده waxay maraysaa jarabkii la soo shaqaynayay 4 sano oo maaragtay daacad u ahaa la shaqaynayay ahaa wax walba diyaar baan u ahay markii waqtigiisii dhammaaday dowladda uu diiday inuu xalaashaday dhiiggiisa iyo sharaftiisa iyo yani dadku maadaama aysan baranin waxa uu ku shaqaystaa waxay tahay qofkii kor yimaada qaarkood inuu wax uu ka shaqaynayo waxaan ahayn ka shaqeeyo eedeeya caadadiisa waxay tahay inuu shaabadeeyo waxaa lii sheegaya hadda asagoo leh waa jenaraal xaftar oo imaarada lacag soo siiyey alaabtaas ka sheekaynaya filimkaas waa filimkii 2010 ku soo eedeeyey wax kama jiraan way soomaaliduna waa ogeedeen maxaa cabdullahi farmaajo waxaan ku sheegayaa caawa filimkaas kaa dhammaaday wadaniyadii kaa dhammaatay waxa aad u socotaana caawa ay tahay duulaan cad oo bareer ah oo dad gooniya aad usoo maaragtay caawa usoo bareertay horaan u sheegayoo taariikhda waxaan u malaynayaa wax kalaad mashquul ku ahayd markaad maraykankii joogtay sida maaragtay dalkan iyo wax laga soo maray waa si ay saabtaan u malayna meeshan si kalo la yidhaahdo waan kuna qofaa ku dhimatay ayagoo dictator la dagaalamaayo oo iska wareejinayo ayagoo inta ka daciifsan ayay dagaalameen dadkii joogaana waa dadkii aabayaashood ay ku dhinteen ayagoo dictatorshipka iska riixaayo iska bixinayo maantay adiga oo ka tabar yar ee dila Soomaaliya ku hareeraysan suuragal ku noqonaysa inaad caburisid dadkiisa dadkooda intaad u timaadid aad dadkooda madaxda ay siyaasiyiintooda aad maaragtay kala baxdid kuu suuragelinayso waa iska qiimgaraynaysaa waa gurta waxaad ku hadlaysid waxaan kugula talinayaa farmaajo ka joog maanta maalin aan ahayn haddaan noolnaan aad ka shay aad ogaa doontaa ka joog dadkaani dad nabadeed weeye dastuurka iyo ummadda Soomaaliyeed wixiisa ku soo noqo labada kuu shaqayn mayso iridda keliya kuu furan caawa way xataa teendada afsuunina ku noqoto saxmaa waa inay iscasishaan meel kaloo kuu furan lama shala qaladumisa ku sheegi jirtay habada laga dhacaad sheegi jirtay filmaanada akhri jirtay waa soo xirmay adigaa midka dala sameeyey inaad isku caalish jirtid bal xagee lagu arkay laba aqalaa ku doorat hal aqaloo meel isku soo xiraaya markaasaan ayadan koonki buuxinaan lahay gacmaha ii taaga يعني ذلك الصوماليين انت اسوا كان عقل بدين وانا فانسين مدحوين waxaan ku sheegaynaa farmaajo waxaan ku sheegaynaa madaxweynuhu kiis ma jira afkii anaga bartay waxaan ku sheegaynaa waqtigaas waa soo dhamaaday ha ku soo leeyahay meeshaan saada inaad la timaatay jenaraal saada aad meeshaan kala baxdid waa iska dirin garaynaysaa halaynin ummadda dhiigga jooji ciidanku ma soo socoto adaan gaarsiiyo ka joog ha soo aadin meeshaan haddaad soo aado Soomaali maxamed ogaada qaranimada yaa la dumiyay qabiilaa loo noqday qabiil kama aan la shaqayn farmaajo aan la socday farmaajo aan la socday qaranimada ka shaqaynaynay taas sanad dhisaynay wiilasheenna la socda ee maanta maaragtay ku jira ciidamada waxaan lahayn iska ilaaba maalin qabiil kala sheekaysan maanta waa u yeeraynaa waxaan leenahay ka soo baxa farmaajo ninkii u dambeeyay la shaqaynayay waa General Sultan John meeshuu ka baxaysan hadda ogaada جنرال صادق وقتين سو فرماجو وسو شقي كل عمدات waxaan idin soo haray qoladiina bixi ka mid yahay qubaaqiin waa la xisaab tamaya ingiriiskan ka wadan bixi waas naqaana xafid dagiya naqaana waa lagu dacweynaa ingiriiska laga dacweynaa ku baxsamaysi iga dambeyshan kaas kuwiina local kana baxsamaysiino maxkamadda gobolka banaadir iyo muqdisho ay naga hadlaayeen diilahay waxaan idin sheegnaa ka jooga ha ku soo degdeginina dhiiga daadinaysaan jooga dowladda meeshaan ma jirto ninka aad ka amar daadinaysaan waa nin waqtigiisii dhammaaday intaasaan kusoo gabagabeynaya abdullahi tofan kusoo dhawaad bismillahi raxmaani raxiim runtii maantii caawa waxaan ugu hambaliyanayaa raashin fale shacabka reer muqdisho shacabka Soomaaliyeed oo run ahaantii ilo shacabka Soomaaliyeed ay muddo gudin oo ilaa 20 sano u soo dambeeyay ugu soo dhammeeyay oo ay xukunka si iyadoo ku daaran 4 sano mar lagu kala wareegay xulfi Soomaaliyeed caado Soomaaliyeed dhaqan Soomaaliyeed oo runtii waxay ahayd lagu soo caalmaanay dhibaatadii looga soo baxay laakiin runtii dowladda hadda jirta uu madaxweynaha farmaajo wadax ka yahay ee dalka gelisay intii ku
horreysoo dhan waxaa loo haystay in niman siniya wanaag inuu sheediraynayo ama dood iyo intii ku qancinaya laakiin arrintaas waxay beeyowday maalintii inta baarlamaanka la tegey si sharci darra ah 2 sano loogu qasay arrintaas waxaa ka dhiidiyey daraasaad xasan oo runtii isaga oo khatar geliyey mustaqbalkiisa iyo darajadiisa laakiin xaqa ka dhex buuxaya daraaddiis runtii u bareeray sheegay mar kastana inuu xaqa guulaysanayo anagu waan ogeyn waxaan u mahadcelinayaa maanta shacabka halkan jooga reer muqdisho iyo inay janaasaadda caawa usoo baxaan inay u mudaharaadaan run ahaantii hadda wixii ka dambeeya mudaharaadkaas iyo rabitaanka shacabka uu madaxweynaha u maleeyey inaysan shacabku aysan rabin dimuqraadiyadda ama xukunka wareegista aysan rabin runtii maanta waa la muujiyo ilaa 10 kun ilaa 20 kun oo qof maanta kasoo baxay waxaan rajaynaynaa reer muqdisho iyada oon qori caaladiisna lagu caburin waxna lagu caburin inay soo bixi doonaan berito iyo wixii ka dambeeya inay soo bixi doonaan ayna ku difaaca doonaan rabitaankooda inay ku difaaca doonaan waxaan runtii baaqii ay jeediyeen xildhibaanada ayaan meesha raba inaan ka jeediyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliiska ciidamada qalabka sida dhammaan mudaharaadayaasha oo raba in shacabka Soomaaliyeed yaan xaqab ugu furin meeshii janaasaadda uu qaaday qaad damiirkiisa wuxuu sii waayey inuu wiil Soomaaliyeed taariikh sii waayey waxaan rabnaa adinkana sidoo kale inuusan damiirkiina uusan ilisiin in adig Soomaaliyeed taariikhsan shacab Soomaaliyeed waxay rabaan xukunka in si nabadgelyo ah looga kawado waan soo dhaweynayaa maanta runtii dad halkan jooga guusha ay dhaliyeen waxaana runtii ku baaqayaa in la dhamaystiro guushaas waxaan sidii aan ku wareejinayaa ajacad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وما قلته وحال الموقع الجبال توصل أو حال ألم ترى الله ركبوا تسوق ما لو كان ألم ترى وسوق عفوني دولار هذا سكان الجبال واللي هذا ما هذا يريد أنا وعن قبائلي هنا هذه الساعة في الجود قلت شروح ولا شرع اللي قاعد يجي يسوق له وين تدخل قلت مكان في الصومالي مش كتير ضروري أنا اليوم عندنا الشيء روميو دولة حكي الأماري حدي وشي وين دور الشيء اللي للرقم قولي اللي السبعة بيجيب لي وصوم صارت وحكوا شقيني وسكان الصوماليات شروع وحكوا شقيني حدو يقول حكي وانا كده ما تدور شهر هذا أو سياسة هلقي الشيء اللي هذا هو البديل شكل طبعا مكان أنا كان قبل شير كله صادقات يوجا الشيء سبحانه وتعالى كهاي قولي ماشي أو شير كل واحد قال تري عيد وادي الصومالية ما أنت قابل لا ما حكى غير كده دوي تكتب الدويسي ما أنت هالكذي يعني بعدين فحكوا ترينا يا حقيقة تل الدبلو يعني حكوا الصور مريض سياسة بافرن وده الشيء سبحانه وتعالى هذا حبابته كلها دوري ولا فدرال وين تيرم باجرة حد يعيد والباقي مركا إلينا أنا حكم قابلها حد حلقة توجه عن قبا حد المفكر يسار قبا القصة طبعا يقص عن عذر معها وحنا حبينا تيجي كل دقيقة ويسأل عذر هنا نقول كذا هلا جيجو هل الشيء عارض وهالشقيو مسكاف وهالشقيو سمو قدام ودقة صادق السوس عنا نشير كرو ما على السوق سياسة سوقه أيوة حروا إذا ماذا قالوا في السلاح ولشنا سراكيشنا ما ندري سوق شرنا مشغلين السكين والله هذا تراني صادق ما بيسوع عندنا وصارش تكتب جوجا كل يسيو وعاشنا جوجا بدنا نبدأ جوجا نجي جوجنا ترتيب الله شقيو أنا واحد يوم نعرفه نرضى يوحي تفشينا يوحي أنا كشغل لكن قرية صوب حينا ما أقبل ما نصب إلا نقول كذا وزين بسم الله الرحمن الرحيم مواضيع شغلة كان سياسيين الإعلانات السلام عليكم ورحمة الله وحرر عليكم يعني دور الإعلانات وفي مشهد أنجو من وشير قلت ذكر ديجان كان ورشير قلت يجب أن يكون
waxay tirsanayaan oo ay caawa bannaanka kusoo istaageen oo dhammaan shacabka meel kasta joogo meeshuu kore iyo nawaaxigeed guri kasta xilligaan aan joogno dad bannaanka taagan yihiin waxay la yaaban yihiin waxaa la leeyahay duulaada ay ku soo socda dad shacaba oo maaragtay guryahoodii iyo afurkii soo afuray oo suxuurtii iyo maaragta tarawixii inay fikiraan sugaya ayaa dadka dhagohoodii waxaa aad ugu badan oo aan dareemaynaa qolayska aan ku dareemaynaa in la leeyahay colaadna ku soo socda dadka meeshaan degan waa dad qabiila hadday dadku qabiil yihiin meeshaan deganna waxaanu leenahay dadkan qabiilku ah meeshaan degan dowladda la leeyahay ku soo socotaa iyo codka ugu soo maarkuray oo ku soo socda waa ka digayna odayaalaan nahay dadkii qabiilku deegaankaan nahay dad marasaha meeshaan jooga waxaan rabnaa arrintaas inaan ku kalsoogin oo dhibaato aysan meeshaan sababtaa waxa maanta lagu soo yiyamo oo soddonkii sano la soo asaasaya inaysan maaragtaa sabab u noqon dhibaato meesha ka waxaan rabaa marka jalmasaada wuxuu ahaa amad u yahay taliyihii booliska gobolka banaadir xilkii waa laga qaadanaya garaadihii iyo xuquuqdii ciidamada waa laga qaadanaya asagoo shacaba ayuu shiir kula yimi waxa loo daba joogaa waa fahmi la-nahay waa dareemi la-nahay waa la yaab ma jiro garaadihii aad timaadeen sidaa sheegteen xilkiyaa laga qaaday in marka asagoo shacaba deegaankiisii iyo maaragta meeshii dheerkiisi u joogay guri ama dugdego welwel shacabkii udhexyimid iyo ummaddii dheerkiisa ahayd la yidhaahdo dowladda soo weeraraysa dowladda soo aanan soo arkin adoo hadeerta meel kasta aan ka dareemayno shacabka soomaaliyeed attention taagan yahay wax la aqbali karaa arrintaas waxaan leenahay waa gandaas arrintaas waa qadaro arrintaas waa xaduud waxaan leenahay cid walba wadda hadday dowlad tahay iyo haddii dadka oo magac kale iyo wax xirfad gooniya ama maaragta ujeedkooda uu ka dhexeeya jananka haddii ay waddaba waxaan leenahay arrintaas yaa lagu kalsooyi jananku maanta qabiilkiisu dhex joogaa xilkiina waa ka qaadeen wixii aan lahaydeen